Asalaamu calaykum, soo dhawaada asxaabta ku xiran janaalka. Maanta waxaan ka hadli doonaa 10 cunto oo ilmaha ka caawiso inay dheeraadaan. Markaa soo dhawaada. Caadi ahaan markaan ka hadlayno dhererka, cunuga inuu dheeraado waxay ku xiran tahay hidde-sidaha cunuga uu hooyada iyo aabaha kala yimid iyo familka dambe ee dhaxalka hidde-sidaha oo ka wato. taasoo ku caawisa ilmaha dhererkooda. Marka taas waa tan koowaad ee xadiiso cunuga dhererkiisa meesha uu gaarayo. Ma hooyada raaco ma aabaha raaco ma familka dambe uu qofka raaco. Marka waxyaalaha cuntooyinka ka caawiyo ilmaha in dhererkooda uu inta loogu talagalay oo hidde-sidaha inay wax ku darsamaan ka caawin karo waxaa waaye waa ilaa iyo 10 cunto oo video aan kusoo koobi doono. Markaa soo dhawaada. Intaan gelin 10 cunto ka hor, cunuga korashiisa wuxuu u baahan yahay borotiin u baahan yahay murqihiisa ay ku dhismaan. Wuxuu u baahan yahay vitamin D iyo calcium iyo wuxuu u baahan yahay zinc. Vitamin D iyo calcium-ta dhismaha iyo lafta cunuga ay ka qayb qaadataa. Borotiinka wuxuu ka qayb qaataa murqaha ilmaha halka zinc-ga uu ka qayb qaato caadi ahaan korriinshaha iyo dhererka ilmaha. Marka 10 cunto oo waxaan ka hadli doonaa qofkii dhaqaale haysan uu gadan karo qofkii hadduu tabar daran yahayna wixii uu ka gaari karo uu ka samaysan karo oo isku darsan ayaan halkan kusoo koobi doonaa. Marka tan u horeysa waa caanaha. Caanaha waxay leeyihiin calcium fara badan. Caanaha ugu horeeyo ilmaha intay yar yihiin ilaa iyo 7 sano meelahaas ay kasoo gaarayaan. Ka badan hadda sii wadi karto way fiican tahay. Laakiin ugu yaraan ilaa 7 sano kasoo gaarayo cunuga in caanaha ugu raatid. Tan labaad yogurt-ka ilmaha korriinshahooda xagga dhererka aad ugu qayb qaataa. Yogurt-ka oo kale oo ah kan labaad kan saddexaad oo ah malayga. Malayga si fiican midda kale ilmaha wuxuu ka qayb qaataa xagga fahankooda, tarkiiskooda, cunuga waxbarashada uu tarkiis saaro. Fahankii cunuga xagga waxbarashada, korriinshihiisii wixii uu ka qayb qaataa malayga ma ahan xagga dhererka kaliya inuu ka qayb qaato. Xagga ardayga markuu cunuga wax baranayo waxa ugu badan oo saacido waxaa waaye malayga. Kan afraad sisinta iyo looska. Sisinta iyo looska ayadana aad ugu saacidaa. Sisinta waxay kala samaysaa ilmaha cuntada u furtaa. Ilmaha appetite-ka u furtaa sisinta. Sisinta iyo looska oo kale oo ah kan afraad ilmaha dhererkooda ka qayb qaadataa. Kan shanaad waa mooska iyo faroolaha waxaa ka buuxa zinc. Zinc-ga ka buuxo aad ugu fiican ilmaha korriinshahooda xagga laftooda dhererka uu ka qayb qaato. Kan lixaad bucur guduudka iyo toonta in la shiido ku fiican yihiin ayaga. Bucur guduudka iyo toonta oo kale aad iyo aad uu ka qayb qaataa korriinshahooda ilmaha xagga laftooda iyo murqaha iyo dhererka ilmaha si fiican uga qayb qaataa. Tan toddobaad oo ah doorada ama hilibka doorada oo kale ama hilibka shimbiraha boolada hilibkeeda oo kale aad way u fiican tahay ilmaha wayna ka qayb qaadataa xagga korriinshahooda oo dhererka. Korriinshaha caadiga oo tan dhererka. Tan sideedaad hilibka guduudan asagana aad ugu fiican yahay ilmaha. Hilibka guduudan oo cunuga ka soo qaad ilmaha marka hilibka guduudan cunuga 9 bilood markuu jiro in la bilaabo ku fiican yahay. 9 bilood ka hor hadii u bilaabaysid inaad shiidid si fiican u karisid shiidid wax jilicsan cunuga uu cuni karo uu ahaado. Cunuga wax ma roogi karo laakiin 9 bilood ka hor markuu gaaro wuu qaadan karaa. Tan ugu dambeyso oo ah ukunta. Ukunta cunuga intuu ka yar yahay 6 bilood ma la siin karo laakiin 6 bilood markuu soo gaaro shaharka yar oo jaalaha ah la siin karaa. Markuu sanad gaarin ukunta caadi u qaadan karaa. Laakiin ukunta ilmaha marka la siinayo waxaa wanaagsan in si fiican looga kariyo. Waxaa ku jirta bacteria hadhowto ilmaha ku keenaysa haddii si fiican loo karin typhoid inuu ku dhaco. Bacteria-da keenta typhoid-ka laga helaa ukunta in ilmaha si fiican looga kariyo wanaagsan. 10kaas cunto waa 10 cunto ee ilmaha ka saacida xagga dhererkooda inuu ziyaado oo ilmaha dhererkooda wax ku darsamo. Waxaa kale oo ugu muhiimsan oo 10 cunto marka laga soo tago cunuga hurdo ku fiican inuu hurdo. Leena hurdada xilliga cunuga uu hurdayo waxaa la soo daayaa hormoonka korriinshaha ilmaha. Cunuga markuu hurdayo la soo daayaa. Marka si hormoonka loo soo daayo waxyaalaha in hormoonkaas la soo daayo kamid
ka qayb qaata waxaa kamid ah cunuga inuu ku hurdayo meel mugdi ah oo waxbana uusan ku darnayn wax shanqar aysan ka ag yeeraynin jawi mugdi ah shibna ah oo ku jiro markaas ayaa hormoonka la soo daayaa si marka maxaa la hormoonkaas korinshaha qayb fiican oo ka qaata iyo in cunuga xilli fiican oo hurdo siiyo habeenkii cishaha marka la idmo korin cunuga seexdo ilaa ay subaxii 12 saac aad ay ugu fiican tahay ilmaha korinshahooda hurdada maxaa la qayb libax leh ka qaadataa ciyaarta mahna ilmaha ciyaarta laga xeeyo ciyaarta ayadana qayb ay ka qaadataa qayb weyn ay ka qaadataa iyo maxaa la hada uu awoodid cunugaada in meel dabaal ah geysid uu cunuga uu dabaasho kale dabaasha aad iyo aad qaybta ugu muhiimsan waa ciyaarta in cunuga ciyaar fiican la siiyo oo loo fasaxay ciyaartiisa in maxaa la dabaalashada iyo cunuga meel ku dabaasho la geeyo iyo hurdo ku filan cunuga inuu helo mid ugu muhiimsan oo cunuga dhirkiisa xadidan waxa waaye hereditary-ga cunuga uu wato hidisidaha uu wato hidisidihiisa haduu cunuga dhir uu sheegay 10 kan cunto la siiyo cunuga hurdo fiican uu hurdo ciyaartiisa loo fasaxo dabaal uu sameeyo insha Allah waxa rajeynaa in wax fiican wasbedel muuqda laga dareemi doono marka soo dhawaada siinaa share gareeya in la gareeyo dad badan ay ugu faa'iideystaan soo dhawaada